بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داوديال كسو دوادا وروحي دالكا يدافع عالم كينيغا سو غاري واد كداوتان شاشة تلفزيون كعالمي اي سي دبليو warkana waxa idin la socodsiinayo anigoo ah Mawlid Jaamac Farax Mawlid Galwaaq qodobada kuwooda ugu door karoon aad ku maqli doontaan warka iyaga waxa kamida Cabud Waaqo si xawli ah loogu soo daabulayo qaadka hareeriga ee ka yimaada dalka Itoobiya odayaasha dhaqanka iyo ganacsatada magaalada Balad Xaawo oo dawladda Soomaaliya ku codsaday in la dedejiyo dhismaha garoonka diyaaradaha ee magaalada Balad Xaawo maamulka ciyaaraha kubadda cagta ee Cabud Waaqo oo joojiyay dhammaan ciyaarihii ka socday magaalada Cabud Waaqo gudoomiyihii hore ee degmada Doolow oo ku sugan xirag ku taala Baanyooley oo ay ku sugan yihiin ciidamada wasiir Janan ayaa ka hadlay xilka qaadistiisa madaxweynaha maamulka Puntland ayaa ka tacsiyay geerida gudoomiyihii gobolka Nugaal sidoo kale waxa uu ka hadlay qaraxii xalay ka dhacay Garowe qodobada dibaddana waxa kamid ah diyaarad dusha kala socotay bandow la saaray dalka Suudaan oo la soo riday qodobadaas iyo kuwa kale oo faahfaahsan ba goordhow u diyaar garooba warkii oo fidsan isku soo noqod wanaagsan daawadayaal iminkana warkii oo fidsan aan ku bilaabay magaalada Cabud Waaqo si xawli ah loogu gado qaadka hareeriga ee ka yimaada dalka Itoobiya warbixin amuurahaasi ku saabsan waxa inoo soo diyaariyay wariyahayaga Mahad Bashiir Xilif halkani ma ahan dal kale ee gudaha Soomaaliya waana magaalada Cabud Waaqo muddo 2 asbuuc ah oo dalka laga joojiyay duulimaadyada caalamiga ah oo ay qayb ka yihiin kuwa qaadka Cabud Waaqo iyo deegaanada xadka ku yaala ee dhanka Itoobiya wax saameyn ah kuma yeelan magaalada Cabud Waaqo waxa subax walba soo gala in ka badan qaadkii ay keeni jireen diyaaradii ka imaan jiray dhanka Kenya markii laga soo tago burburinta oo hantida Soomaaliyeed ku haya qaadku waxa haatan u dheer oo ka dhalan kara in magaaladani Cabud Waaqo uu ka dhigo goob hoy u noqota caabuqa coronavirus maadaama qaadkani uu ka yimaado dalka Itoobiya oo kamid ah dalalka geeska Afrika uu kiisaska badan caabuqa coronavirus ama COVID-19 kuwani waa qaar kamid ah dadka ka ganacsada iyo kuwa cunaqaadka ee ku nool gudaha magaalada Cabud Waaqo waxaynu ku booqanay mid kamid ah maqsinada qaadka xilli hawshoodu ay si caadi ah ugu socotay waxay dhamaantood wada dareemayaan halista uu leeyahay qaadka naga soo galaya dhanka Itoobiya ayagoona sheegay inay diyaar u yihiin wada kaste oo qaadkan lagu joojin karo inay ka qayb qaataan ayna garab ku siiyaan dawladda Soomaaliya caabuqi halkaan uu ka soo galayba halkaan uu ka farabaxsadayba caabuqi waan iska goobaynay halkaan uu ka soo maal iyo moodba halkaas waan dhaf caruurihiina dhaafiyay na islaamihiina dhaafiyay dadkii oo dhan buu wuxuu nooga dhigay inkaar buu nooga dhigay war caabuqi halkaan uu ka farabaxsaday caabuqana laga qabto waxaan ugu baaqaynaa ciidanku inay isbalaariyaan waa ognahay waad shaqaynaysaan isbalaariya muddo fara badan 22 sano baa qaad ka soo shaqaynayay qaadku waa labo mid buur baa leeyahay mid 571 baa leeyahay mid kick baa leeyahay mid haawaday baa leeyahay ka maanta cawda ka cabanaysa loo soo raray waa kii gigta looran jiray oo xajiinta badnaa oo dadka isnaamaamiska ku kicin jiray dawladda federaalka waa soo dhaweynayna kimirooga xidhiidh baan soo dhaweynayna waxa ka daran ka dhabarka naga soo toogtay oo xajiinta badan oo allergiga badan oo dadka fayraska u gudbinaya taliya cawdaq xidig oo degmada cawdaq stationka jooga ciidamadiisa kuwa booliska kuwa kooyalaatanaad xuduudaha inay xiraan inaan lagu laarush qaadan askari baa cuna inaan jeclaysi la gelin bangarab la saaro hadduu walaalka yahay in laga reebo aan stationka soo dacweeyo uusan soo gelin waxa weeye waxaan aan ku qanacsanay anigu qaadka markii horena miiro baan iibin jiray waa la joojiyay mid kale haddana la soo furay waana ka ganacsanayay subaxii baan u soo shaqo tagaa waxaan ku uri wax kasta oo
qoyskayga ka baxa isaga uun baan ku fangareynaya saakana waxaan ku qanacsanahay hal alaale halkii caafimaadkayga iyo dantaydu ku jirtaba in la naga joojiyo anagu waxaan nahay dad shacab ah dad 30 sano dawladda burbursanayd dad la koo burburay baan nahay dalka waa caafimaadka lahaa ma taqaana wax walba lahaa hormaray baa ma taqaana iska xakameyn waa iska daweyn waa dadkoodii maalba kun qof u dhimanaya marka anagu waxa weeye malaria iyo walba waxaan u dhiman jirnay kuudiyo waxyaalo kaliita u dhiman jirnay xanuunkaas marka waxa weeye maadaama wadanka uu soo galay dadkeena iyo shacabkeena waa in u danayno wadamo badan waa looga danayay waa laga joojiyay deegaanka Soomaaliya in badan oo kamid ah marka waxa weeye hadda anaga hadaan nahay gobolka Galgaduud gaar ahaan ma taqaana degmada Cawdaq wuxuu ka soo galayaa xuduudda dheer oo Itoobiya aan la leenahay caafimaadkana ku jira in la xiro oo danteena ku jira hadda ka shaqeystaan Ilaahay calaf iyo wax ka fiican baa Ilaahay siinaya 20 bari oo ma taqaana inta adduunka ma taqaana caafimaadkiisa ma taqaana la ilaalinayo waxaan ku codsanaynaa dawladda federaalka ciidamada 12aad oo gobolka Galmudug jooga inay bahalkaas laga xakameeyaan 20 bari maadaama kiisas badan ciidamada dalka Itoobiya lagu sheegay aad far badan lagu sheegay marka waxaan ku codsanaynaa inay naga xakameeyaan si kastaba ha ahaatee qaadkan soo gala degmada Cabudwaaq oo waliba ka soo gala dhinaca Itoobiya ayaan ahayn mid ilaa iyo xilligan waxa xakameyn haysta waxayna degmadani halis ugu jirtaa in si fudud uu ku soo gaaro caabuqa coronavirus waa mahad Bashiir Cismaan mahad xilif telefishinka caalamiga ah ee Cabudwaaq TV magaalada Cabudwaaq ee bartamaha Soomaaliya madaxweynaha maamulka Puntland ayaa ka tacsiyeeyay geeridii ku timid gudoomiyaha gobolka Nugaal oo ku dhintay qarax xalay ka dhacay magaalada Garowe sida uu warbixintan uu inoogu soo diray wariyaha Garowe inooga soo warama aadan sheekeeye madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deni oo markii ugu horeysay ka hadlay qarax xalay ka dhacay magaalada Garowe oo lala egtay gudoomiyaha gobolka Nugaal Cabdisalaan Xasan Xirsi Gujir ayaa sheegay in falkaas argagixisa uu ahaa mid aan marnaba la aqbali karin Saciid Deni oo ugu horeyn ka tacsiyeeyay geerida ku timid Allah u naxariistay gudoomiyaha gobolka Nugaal ayaa sheegay in ay maalmo ka hor hayeen macluumaad la xiriira qaraxan laamaha amniguna ay ku mashquulsanayeen dabagalkooda balse ay ku dhacday qadar shacabka Puntland ayuu sheegay in ay yihiin kuwo dhiiran balse ay jiraan waqti dheer oo la galinayo sidii loo kala furfuri lahaa waxa uu ugu baaqay in gacan la siiyo laamaha amniga si looga hortago argagixisada inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun waxa marka ugu horeysa tacsi u diraya dhammaan dadka Soomaaliyeed gaar ahaan reer Puntland si gaar ah qoyskii iyo eheladii uu ka geeriyooday gudoomiyihii gobolka Nugaal waxaan Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ugu baryeynaa inuu naxariisti janno uu ka waraabiyo intii ku dhaawacmatana Ilaahay u boogadhayo runtii waa far argagixiso oo aad u fool xun oo aan marnaba la aqbali karin waxaan aad iyo aad uga xunnahay falka noocaas inuu magaalada Garowe ka dhaco waa qadar eebbe waxaase Ilaahay idankiis rajaynaynaa wixii waxa geystay iyo wixii ka dambeeyay in ay cawaaqibta ay leedahay arintaas ay mutaysan doonaan Puntland waxaa lagu yaqaanaa dadkeeda iyo dawladeedaba inay amnigooda iyo danahooda ka shaqeeyaan waxaa ballan nagu ah inaan cirib tirno lana dagaalano nooc kasto argagixisada ay leedahay cabsi iyo baqdin aysan gelin waxaan aad uga tiiraansannahay gudoomiyaha qaaliga ah oo runtii amniga muddo badan ka soo shaqeynayay markiisa horna ciidamada Puntland ka tirsanaa nin geesi ahaa tiisi baa gashay waan ka tacsiyeynaa waan kana tiiraansannahay laakiin namana cabsi gelinayso nagamana baajinayso inaan dadka noocaas ciribtirkooda aan qayb ka ahaano waa aafo caalami ah oo adduunka dhan ka jirta gaar ahaan Soomaaliya xoog ku leh laakiin dhacdada xalay ka dhacday Garowe iyo dhacdooyinka Puntland ku soo noqonayo waa dhacdooyin runtii aragtidooda leh dadka reer Puntland waa dad dhiifoon laakiin waxaad moodaa in waqti lagu bixiyay in amnigooda iyo khalkhal la geliyo waxaan Ilaahay idankiis ka rajaynaynaa annaga iyo shacabkeena isku duuban inaan dadka noocaas aan meel la yaqaan uga soo hori doono haddii Ilaahay idinka dhigo dawlad ahaan waxaan ballan qaadaynaa in aan tallaabo taas iyo kuwa la midkaba aan uga hortagayno kuna ciribteeno inaan ka howlgalno haddii Ilaahay idinka dhigo shirkii shalay
dowladda ay yeelatay oo guddiyada la dagaalanka cudurka coronaviruska iyo amniga labadaba aan ka wada yeelanay runtii waxyaabaha aan aad xogahooda u helayna waxay ahayd in dad sharwadayaal ah ay bartilmaamaysanayaan inay ka faa'iidaystaan wanaagga iyo horumarka Puntland ay gaartay dadka xun shacabkan inay noqdeen shacab diidan dulmiga shacab diidan argagixisiga shacab isku duuban waxay muujinaysaa dadka noocaas oo cadaawada noocaas wata xogahooda waan helaynay diyaar garowga dawladdu waa u jiray laakiin tay xala dhacday qadar dhacday bay ahayd laakiin waxay ahayd fal xogtiisana maalmaha kan la ogaa ee lagu raad joogay wixii idmanaabaa dhacay laakiin waxaan u sheegaynaa dadweynaha reer Puntland dawladooda inay diyaar u tahay in ay arintaas ka shaqeyso waxaan iyagana ka codsanaynaa inay dawladda si dhow ula shaqeeyaan laamaha amniga Puntland ayaa dagaal dheer kula jirtay kooxaha argagixisada ee Daesh iyo Al-Shabaab oo ku dhuumaalaysta buuraha Calmadow iyo Calmiskeeda ee gobolka Sanaag ciidamada la dagaalanka argagixisada Puntland ee marka magacooda la soo gaabiyo loo yaqaan BSF oo si adag howlgalkan u waday maalmahan ayaa ku guuleystay in ay ku qabtaan agagaarka dekedda Boosaaso guri ku yaal mid ka mid ah xubnaha la baadi goobayo kaasoo xilligaas ku jiray dhuumaalaysi saameynta ka dharatay weerar argagixiso oo dhawaan ka dhacay magaalada Laascaanood oo daris la ah caasimadda Puntland ayaa qayb ka ah dabagalka hadda la bilaabay waxaana la rumaysan yahay in uu jiro xiriir ka dhaxeeya weeraradii u dambeeyay ee lagu dilay mas'uuliyiinta gobolka Sool ee Somaliland iyo weerarkii xalay ka dhacay Garowe maadaama ay jirto wada shaqayn dhow oo la xiriirta la dagaalanka argagixisada ee labada dhinac aadan Cabdullaahi Sheekeeye CWTV Garowe odayaasha dhaqanka iyo ganacsatada magaalada Balad Xaawo ee gobolka Gado ayaa dawladda Soomaaliya ku codsaday inay dedejiso dhismaha garoonka diyaaradaha oo dhawaan laga bilaabay magaaladaas sida ay warbixintan inoogu faahfaahinayso wariyahayaga Nibcan Nashaad odayaasha dhaqanka magaalada Balad Xaawo ee gobolka Gado ayaa soo dhaweeyay dhismaha garoonka diyaaradaha oo dhawaan laga bilaabay degmadaasi Balad Xaawo odayaasha dhaqanka iyo ganacsatada degmada oo kulankan maanta iskugu yimaadeen ayay xukuumadda Soomaaliya iyo maamulka degmada ka codsadeen in ay dardar geliyaan dhismaha garoonka diyaaradaha ee magaalada Balad Xaawo shirka maanta waxa weeye waxaan ku taageeraynaa garoonka cusub ee laga dhagax dhigay degmada Balad Xaawo waxaan kaloo ku sii taageeraynaa meesha ku habboon oo laga dhigay garoonka maanta garoonkan maanta yimid baa noogu horeeya haddee waxaan rabnaa in la yimaado dawladdu inay imaado oo wax ka qabato oo haddee maantayto waxaa weeye dhibaatada taalla ay aragto oo madaxweynihii imaado oo ra'iisul wasaarihii imaado oo madaxdii waddanka qaranka inay timaadaan rabnaa waxaa la isugu yimid taageerada taageerahayo garoonka Balad Xaawo laga dhisay oo la dhagax dhigay yaan taageeraynaa haatanna waxaan jecelahay haddii garoonkii loo dhagax dhigay oo hadduu ilaahay ku weyn meeshaan ka dhistay la yidhi inaan dhisanno waxaan awood leenahay iyo waxaan maal leenahay inaan gashanno yaan diyaar u nahay waxaan fikirka la qabaa walaalihii iga horreeyey oo baahida garoonka faahfaahiyey ayagaan la qabaa fikirka ujeeddada annaga aan leenahay meeshaan isugu nimid odayaashii Balad Xaawo dalka Balad Xaawo joogay deegaanka Balad Xaawo ahaa waxgaradkooda maanta waxay isugu yimaadeen halkan aan taagannahay ujeeddadoodana waxay ahayd garoonka Balad Xaawo laga dhagax dhigay inaan isku raacno maanta oo waan dhisanno waxaan raalli ka nahay meesha shalay la dhagax dhigay oo garoonka ahayd inaan dhisanno oo wax walba aanan u kala herin annaga nidaamnadan meesha isugu nimid horta waa saas garoonka laga dhisay degmada Balad Xaawo waan u ciil qabnay muddo badan baan u ciil qabnay xaqalo ma hadle dawladda Soomaaliya ee federaalka ah ee noo suurta gelisay garoon degmada ay leedahay oo qolo iyo qabiil lahayn oo Soomaaliya ay leedahay iyo Gado iyo Soomaaliya in ka helay noola ogolaaday la dhagax dhigay degmada Balad Xaawo in badan waa u mahad celinaynaa haddaan ay reer Balad Xaawana naf iyo maal hiiliho waa la garab taaganahay garoonkaasna raalli aan ka nahay waan soo dhaweynaynaa
waxbana ka daba dhigan bahayna wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu gudoomiyihii hore ee degmada balad xaawo ahna siyaasi ka mid ah siyaasiyiinta degmadan balad xaawo garoonkaas meesha laga asteeyayna waa meeshii ugu muhiimsanayd oo laga dhigi lahaa meel ka fiican oo caawa degmadan waana ku dhalanay intaana waa kula ekaano 60 jir baan meel saaka aan isleenahay meesha iyada meel ka fiican baa laga dhisayaana ma garanayn waxaan codsanaynaa garoonkaas cid kasta oo carqalad ku haysana saaka hadii balad xaawo waad aragtaan waxgaradkeedii oo aan qabiil ahayn oo nin walba ay dantiisi oo uga dhiidhinayo seed degmadii ku yeeshaa waxay ila tahay inaad saaka fiidiyowga ka arkaysaan waa nimcagoon nimcanashaad CWTV magaalada Caabudwaaq maamulka ciyaaraha ee kubadda cagta ee magaalada Caabudwaaq ayaa joojiyay ciyaarihii ka socday magaalada Caabudwaaq sida uu warbixintan inoogu dhameystirayo wariyahayaga Mahad Dhukane Yuusuf iyadoo koobka horyaalka degmada Caabudwaaq uu ka soconayay garoonka kubadda cagta ee magaalada Caabudwaaq ayaa maanta waxaa si rasmi ah loo joojiyay dhammaan ciyaarihii kubadda ee ka socday garoomada kubadda cagta ee magaalada Caabudwaaq sida uu ku dhawaaqayo gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta degmada Caabudwaaq Salaad Cabdikariin Salaada bismillaahir rahmaanir rahiim dhammaan waan salaamayaa dhalinyarada telefishinka Caabudwaaq oo ugu horeeyay agaasime Mahad Bashiir mahad oo saad ogtahay waxa meeshan ku jiray in badan oo dalka soo galay cudurkan caabuqa ee coronavirus COVID-19 waxaan noo socday horyaalkii degmada iyo kaab kale toona asagana dhulkii kaab lagu magac daray adigu intii muddo isbuuc uu noo socday kadib waxa dhacday yoomkii shalaha iyo isbuuc la soo dhaafayba waxa xiriir fara badan ila soo sameeyay maamulka xiriirka kubadda cagta ee gobolka maamul goboleedka Galmudug iyo qayb ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka ee maamul goboleedka Galmudug intaas oo ay wada codsadeen dhamaantood inay hakad geliyo koobkii degmada u socday horyaalkii iyadoo laga cabsi qabo cudurkan coronavirus cudurkii waxa hadda uu sababay cabsi laga qabo awgeed in ay sheegay laga joojiyo diyaaradihii u kala goyn jiray gobolada iyo caasimadda dalka hakad la geliyay sidoo kale waxa hadda soo socday in gaadiidka ayagana hakad la geliyo cabsi laga qabo bahalkaas codsiyadii ay soo jeediyeen mudanayaasha baarlamaanka iyo xiriirka kubadda cagta ee maamul goboleedka Galmudug waan aqbalay shalay galab ayaan ugu dambeysay kulanka ugu dambeeyay la dheelay hakad baan gelin dhamaantiis ilaa amar dambe uu ka soo baxay dowladda federaalka iyo maamul goboleedka Galmudug waana joojinay Ilaahay yiraahdo intaasi kadib waxa goobta ka hadlay qaar ka mid ah dhalinyarada magaalada oo soo dhaweeyay in la joojiyo ciyaaraha iyo isdhexgalka bulshada si looga fogaado faafidda cudurka coronavirus-ka Najiib Xuseen Xasan waxaan soo dhaweynayaa gudoomiyaha sportska degmada Caabudwaaq iyo maamulka sportska waxa ka soo baxay oo ah maxaan ku raadaa joojinta la joojinayo sportska degmada Caabudwaaq oo ah loo joojinayo coronavirus-ka aad baan u soo dhaweynaynaa ka dhalinyaro ahaan sports ahaan aad baan u soo dhaweynaa ayadoo loo danaynayo danta deegaanka laga dhalinyaro ahaan iyo dhalinyarada sportiga waanu soo dhaweynaa arrinkaas maadaama cudurkii coronavirus oo adduunka dhan qarribay daraadiis loo joojiyay marka waxaan leenahay waan soo dhaweynaynaa waana ku taageersanahay gudoomiyaha iyo gudoomiyaasha gobolka oo warkaas isla soo gartay oo isla fahmay waxaan aad u soo dhaweynayaa go'aankii uu gudoomiyaha sportiga degmada Caabudwaaq qaatay oo lagu xiray sportigii ka socday degmada waxaan kaloo soo dhaweynaynaa dawladdeena federaalka go'aamada ay ka soo saartay isdhexgalka iyo isku socodka dadweynaha Mahad Dhukane Yuusuf telefishinka caalamiga ee CW magaalada Caabudwaaq gudoomiyihii hore ee degmada Doolow oo dhawaan laga qaaday xilka wararna ay sheegeen in looga shakiyay inuu la shaqeeyo wasiirkii amniga Jubbaland wasiir Janan ayaa ka tagay magaalada Balad Xaawo wuxuuna dhawaan gaaray xero ku taala Baanyooley oo uu ciidamo ku haysta wasiir Janan gudoomiyaha ayaa halkaasi markuu gaaray wax uu ka warbixiyay xilka qaadistiisa waxaan shirkiga jirayd ku sheegayaa ama ku faahfaahinayaa bulshada Soomaaliyeed kula wadaagayaa waxyaalaha ka soo tagay iyo waxyaalaha qabsaday iyo waxyaalaha ka jira carrada waxaad ogtihiin annagana shaqo dheer soo qabanay maamulihii gobolka Gadanahay ama gudoomiyaashii gobolka Gadan shaqo dheer aan soo qabanay digsi dheerna aan lahayn
ummadda Soomaaliyeed waxay sugaysay dawlad annaga mabdanagu iyo waxaan islaan maskaxdana dawlad rasmi ah ka jirta ama dawlad waa dhaba laakiin waxa jirto ama cadaatay system dawladeed shaar dawladeed in la qabo laakiin system dawladeed lagu dhaqmo ayna ka jirin carada ama aan lagu dhaqmaynin sida muuqatay ama jirta ama aniga shakhsiyan hadda lagu dhaqmay ama ragga kale lagu dhaqmo xogtina in lagu bedelay gudoomiyaasha lagu bedelay si aan sharci ahayn sifa aan sharci ahayn si ugood ah oo xoog ah in lagu qaatay sida in la yiri anaga halka wareejiseen sheegan oo leeyahay ciidamo ay nagu wareegsan yihiin oo ruux walba baalkii inta ay ahayd hada ruuxa bini'aadamka naftiisa wax uga qaadsan ma jiro meesha waa aragnay inaan sharci ka jirin inta ay ahaydna waa nari waana ku wareejin ayuu soo sansuubinaya shakhsiyan aniga nafteedii ya mission iyo dabagal iyo in la imshimo la igu talagalay oo xataa xilkii la iska qaaday xataa aan la iga harin saas darteed inaan ugu soo tagay meesha bulshada Soomaaliyeed waxaa la wadaagayaa meeshaas system dawladeed kama jiro dawlad Allah keeno dawlad waa rabnaa ummadda Soomaaliyeed 30 sano ay dawlad rabtay ama higsanaysay ama in uu imaatay laakiin tan dawlad ma aho shaar dawladeed bay qabtaa laakiin dawlad ma qabiil cad oo shaar dawladeed qabo oo dadka qabiil ku tarakad gareysanayo oo dadka qabiil ama shacab ama siyaasi qabiil ku tarakad gareysanayo waxa uu sheegayaa ragga saaxiibaha ah oo ka soo tagay oo liin la bedelay si sharci ah kuma bedelin si sharci ah xilin kama qaadin laakiin timada xal foorriyo oo adoo xilki laga qaaday oo haddana bulshada xilki anagu awal bulshada u adeegan waxa dhex joognay bulshadii ayuu aan dhex joogno ba intaas ruuxna laga dilayay intaas ruuxna laga dhaawacay intaas xabadood lagu ridayay la qaxinayay iminkana aqbaraadka dibadda diyaarad dusha kala socotay bandow la saaray dalka Suudaan ayaa la soo riday ciidamada ilaalada madaxtooyada Suudaan ayaa soo riday mid ka mid ah diyaaradaha aanan cidna wadin taasi oo la sheegay inay dusha kala socotay bandow lagu soo rogay dalkaasi si looga hortago faafidda caabuqa coronavirus sida laga soo xigtay wargeys ka soo baxa dalkaasi ciidamada ayaa soo riday diyaaradda xilli ay mareysay hawada sare ee guriga uu degan yahay madaxweynaha Suudaan General Abdullahi Fattah al-Burhani sida la sheegay ilo xogagaala ayaa sheegay in diyaaradda droniska ah ay lahaayeen ciidamada amniga ee Suudaan taasi oo waday howlgal ay dusha kala socotay bandow lagu soo rogay dalka Suudaan isniintii la soo dhaafay balse ay u gudubtay marin qaldan guud ahaan daawadayaal intaas ayaanu ku soo gabagabaynaynaa war wixii dalka iyo daafaha caalamka inaga soo gaaray oo aad ka daawanayseen shaashada telefishinka caalamiga CW warkana waxa idin la socodsiinayay anigoo ah Mawlid Galwaaq aniga iyo intii igala qayb qaadatayba waxaan idin kaga tagaynaa sidaas iyo ammaano Allah iyo ismaqal dambe oo xiiso leh